بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسودو هذا معهد عالم تكنولوجي waxaan soo wadnay course-keennii computerized accounting ayaan soo wadnay casharkiisii waxaan soo dhiganay afraad insha Allah waxaan qaadan doonaa casharkiisii ama xiisadeennii saddexaad in hadda la kaliya qaadan doonaa waxaan hore u soo aragnay forms-ka business-ka uu leeyahay in saddex form uu business-ku sameeyo ama sole proprietorship noqonayo ama partnership noqonayo ama corporation noqonayo saddexda nooc iyo saddexda qaab aynu soo sheegnay farqigooda in maanta isleeyay doonaa saddexda wanaga soo aragnay farqigooda inuu mid hal qof leeyahay solo hal qof faale partnership wanaga soo aragnay oo waa company shuraaka lagu yahay laba qof ay noqon karaan saddex qof ay noqon karaan afar qof wixii ka badan 10 qof 30 qof waxay doonaan noqon karaan laakiin waa company inta lagu heshiiyay inaan wada dhisno dabeedna si partnership si shuraaka loo dhisay company-ga company kale waa corporation dad baa dhisay laakiin saamiyo iibiya oo qofka saami baa lagu siinayaa dadna saamigiisa saamiga markuu iibsado shahada la siinayaa dabeedna saamigaas uu kamid yahay marka ama shirkadda saami ku leeyahay marka waaya bal marka maanta waxaan isleegi doonaa haddii la ka dhigo saddexdan waxay ku kala duwan yihiin saddexdan form ee business-ku waxay ku kala duwan yihiin maanta doonaa isleegno insha Allah waxaan isma bardhigi doonaa bal farqiga u dhaxeeya saddexdan form organizations-ka farqiga u dhaxeeya halkaas waa f afwan saddexda marka farqiga u dhaxeeya ayaan doonaa isma bardhigno markood waxaan ka eegi doonaa dhinaca legal structure-ka waxaan ka eegi doonaa marka labaad dhinaca ownership-ka waxaan ka eegi doonaa assets-ka waxaan ka eegi doonaa liabilities-ka waxaan ka eegi doonaa income-ka waxaan ka eegi doonaa dhinaca tax-ka waxaan ka eegi doonaa dhinaca continuity-ga rising capital-ka ownership transfer-ka regulations-ka bal intaas insha Allah ugu doonaa inaynu iska barbar dhigno farqiga u dhaxeeya markaa si weyn ugu kala cadaan doona wuxuu ku dhaqan comparison of different forms of business organization noocyadaasi waxay ku kala duwan yihiin forms-kan soo aragnay ee saddexdaha kii halka qof lahaa iyo kii shuraakada ahaa iyo kii saamiliyada ahaa saddexdaaba kalka dhiidayna waa f waayay markood waxay ku duwan la legal structure-ka sharciyan iyo qaab ahaanba way kala duwan dhaca sharci way kala duwan macna sharci lagu jaa marka imika gundigi la aasaasay shirkadii marka shirkad hal qof iyo shuraaka ay leeyihiin inta badan waxa israacaya marka soo aan sarwari sameeyno shuraakada iyo halka qof waa qayb ay noqonayaan corporation bilwaas way ku kala duwan marka iyagu waa isku mid inta badan wuxuu same legal structure weeyaan waa solo proprietorship iyo partnership corporation ku duwanaanay haddii uu eegno dhinaca solo proprietorship-ka iyo partnership-ka structure-ha marka la doonayo in la sameeyo marka la doonayo in wax weyn shuruuc badan uma baahna salaana marka la doonayo in la sameeyo uma baahna in dawladda dhaxal loo tago lama baahna laakiin dawladdu hoosaba ku dhameynaysa markiiba waxa ku dhameynaysa wasaaradda ama qaybta wasaaradda ay ku leedahay gobolka joogta markiiba ku dhameynaysa ka legal structure way kala duwan marka isaga marka la sameynayo solo proprietorship partnership-ka marka la sameynayo sameynteedu aad bay hawl yarta sharciyan marka la eego waxaana cidda sharciga la ku dhameynaysa ay tahay ama dawladda hoose ama wasaaradda marka tusaalahan ganacsiga kale ama wasaaradda ganacsiga kale qaybta ay ku leedahay gobolka ayaa ku dhameynaysa marka laakiin marka corporation la aasaasay ama shirkad weyn marka la sameynayo waxa dhameyn kara ama hawshaada gali kara ama company-gaaga ansixin kara waa dawladda dhexe iminka buugan oo kale Mareykanku ku salaysan yahay Mareykanku inta badan waa federal waa state ka koobay ka ugu yaraan state ka aqbalaya ugu yaraan state ka ayaa aqbalaya oo aan soo ansixinaya waxa loo yaqaano corporations waayo corporations-ku de waxa galaysa hanti aad u fara badan baa ku jirta corporations-ka dhaqaalaha fara badan baa ku jira dad fara badan baa ka qayb galaya marka ma doonayaan in hadhow si fudud ay u burburaan shuruuc badan baa la gelin doonaa waa la adkeyn doonaa waa la adkeynaya marka la asaasayo si company-gaas hadhow loogu badbaadiyo inuu jabo ama company-gaasi kaco si loogu badbaadiyo marka laakiin kuwa kale solo proprietorship iyo partnership haday kacaan de markii waa hawshii waa dhamaantay hadii solo laguna kaco de solo proprietorship marka hore ahaa qof qulum ahaa shuraakaduna waa la mid waxay raacayaan solo proprietorship kale dhinaca legal structure-ka sameynta way ku kala duwan waxaan kaloo isku bardhigaa dhinaca ownership-ka lahaanshaha cidda iskale business-ka cidda iskale saddexda form hadaynu eegno laba form way israacayaan markastaba oo sole proprietorship iyo partnership shuraakada iyo halka qof leeyahay labadaas israacayaan de waxa meherada iskale oo dhaqaalaha meherada iyo hantida meherada waxaba iskale
oo lahaanshaha sheegan kara hadduu solo yahayna qofkii baa sheegan kara solo proprietorship hadduu yahay qofkii lahaa baa sheegan kara partnershipka dee shurakadun baa sheeganaysa laakiin waxaa ka duwan corporationka ownershipku aad buu uga duwan yahay corporationka aad buu uga duwan yahay dhinaca ownershipku aad uga duwan yahay tusaale markaan usoo qaadano shirkadda imika oo kale markaad saami ka iibsato dee shirkaddii malihid adigu markaa saami baad ka iibsatay shirkaddii markaa adigu malihid laakiin haddaad u baahato hadhow shirkaddii aad nacdo dee saamiguun baad iibinaysaa dabeedna shirkadda waad ka baxaysaa imika waa inagii sheeganay dhawaan shirkaddan u dambeysay oo samteeda soo banagtay sheero aada u fara badan shirkada suuqa soo gelisay marka sheeriska ay soo gelisay shirkaddu waa la iibsanayaa sheerkaa marka iibsato hadhow ohan mayso somtel baan leeyahay may somtel ma lihid laakiin sheer baan somtel aan ku leeyahay baad leedahay marka sheer baan ku leeyahay haddaad nacdo shirkaddan ama aad doonayso shirkaddan aan shuruucdeeda ku qancin dee sheerkun baad iibinaysaa qof kulun baad ka iibinaysaa ama iyagaaba kaa iibsanaya marka oo tusaale waxa kaa iibsan shirkaddii marka aad la gashay ayaa kaa iibsanaysa marka way ku kala duwan dhinaca iyo ownershipka iyo lahaanshaha way ku kala duwan marka waxay kaloo tusaale ahaan oo kale dhinaca ownershipka haddii aynu sii yaro eegno maxkamadaynta oo kale haddii iminka oo kale qof la maxkamay ama shirkad la maxkamadeeyo hadday shirkadaas soolo tahay soolo qofkii lahaa iyo shirkaddaba labadaba maxkamadda laisla saaraya hadduu partnership noqdona partnerska iyo shirkadda maxkamadda laisla saaraya laakiin hadduu ownership noqdo maxkamadda shirkadda la saaraya laakiin dadkan sheerka shirkadda kuleh la saari maayo marka shirkadda dadkan shahaadada ay siisay sheer kuleh maxkamadda la saari maayo shirkadda la geenaya maxkamadda marka dhinaca lahaanshaha wuu ku kala duwan marka waxaan kaloo kala duwan dhinaca assantiska raasamaalka cidda sheegan karta iyadana aad bay u kala duwan yihiin oo dhinaca ownershipkun bay hoos imanaysaa raasamaalkii ciddii sheeganaysay solo proprietorship partnershipka waxaa sheeganaya memberskaa sheeganaya solana qofkii lahaa baa sheeganaya partnershipna shurakadii baa sheeganaysa marka laakiin assantiska dad sheer ka qayb gasho shirkadeed hantida adigu malihid gaadhiga shirkaddu ay goorada ku shaqeyso malihid laakiin adigu sheer baad ku leedahay hantida ma sheegan kartid marka ma sheegan kartid hantida mana lihid waxay kaloo kordhin dhinaca liability dhinaca deymaha liability waa deymaha dhinaca tusaalaan deyn bixinta oo kale way aad bay u kala duwan yihiin tusaalaan deyn soo qaadasho oo kale ay ku kala duwan yihiin oo iminka oo kale dee shirkaddu haddii iminka ay deyn soo qaato shirkadda soolaya proprietorshipka dee deyntii waa loo qabsan karayaa waxaa loo qabsan karayaa deyntii hadduu qof qura leeyahay qofkii iyo shirkadiiba waa loo qabsanaya laakiin hadday members hadday yihiin ama yihiin waxaa loo yaqaano partnershipskana waa loo qabsanaya shurakada laakiin corporationka memberkii cido shirkaduma liability-ga diinta loo qabsanaya marka xaggaani way ku kala duwan yihiin waxay kale ku kala duwan dhinaca income-ka faa'iidaday ku kala duwan yihiin marka faa'iidada hadday solo proprietorship yahay partnership hadduu yahay faa'iidada waxaa markaa le hadduu solo yahayna de qofkaa iskale waxay faa'iida soo baxdaba haddii kale hadii ay shuraaka tahayna shuraakadunbaa iskale oo faa'iida waxay soo baxdaa iyagunbaa iskale laakiin corporationku aad buu uga duwan yahay corporationku aad buu uga duwan yahay dhinaca income-ka boardka go-aaminaya markaa faa'iidada ay qaybinayaan iyo say u qaybinayaan boardka shirkadda ayaa go-aaminaya marka iyo hadba xaddigii sheer ee aad ka gashay baa go-aaminaya marka waxay kaloo ku kala duwan dhinaca taxiska cashuuraha dhinaca cashuuraha ayay kala duwan yihiin waa imika kale dee way kala cashuur badan yihiin companyga solo proprietorship iyo partnershipsku cashuurtooda way kooban tahay waana yar tahay xagga laakiin dhinaca kale marka la eego taxaska cashuurta dawladda marka ay ka qaado corporations aad bay u badan tahay cashuur double waa laga qaadaa waxaa loo yaqaana double tax baa loo yaqaanaa double-ka cashuurta laga qaado waxa weeyaan marna shirkadda la cashuuraa marna faa'iidadii qof walba helay baa lasii cashuuraa marka double baa laga qaadaa iyaga halka kuwa kale hal cashuurna laga qaado cashuur ka badanna waa laga qaadaa runtii dhinaca iyo cashuurahana aad bay u kala duwan waxay kala duwan dhinaca continuity waxa weeye si socoshada shirkadda ama nolosha shirkaddana ay jirayso oo imika company-gu hadduu yahay solo proprietorship iyo partnership noloshu way kooban tahay noloshu way kooban tahay imika kale solo proprietorship oo kale haddii company-ga hal qof leeyahay tusaale ay dhacdo kale in qofkiiba ila qof walba waa dhibanaya hadduu qofkii tusaale dhinto oo kale waxaa dhacaysa in uu burburo aan ka damay baa suuragal aan ka damay haddii kalena tusaale kale family-gii iyo ay dhaxal iyo waxyaabo badan uu galaa suuragal ah marka continuity si socoshada inta badan xubnaha aasaasay kama soo haraan shirkadaha noocaas kama soo haraan solo proprietorship hadduu yahay iyo partnership hadduu partnershipkii mid kamid a isaguna uu dhinto wixii heshiiskii uu burburaya waxaa dhacaysa in dib haddana loo heshiiyo
oo ama iyaga ay heshiiyaan oo kii tana qofkii dhintay lacagtiisii loo saaro ama hantiisii loo saaro dabeedna iyaguna heshiis dambe haddana ay galaan oo heshiis cusub ay galaan marka inta badan kama soo haro shirkadahaasi kama soo haraan qofkii dadkii sameeyey kama soo haraan oo inta badan haddii ay halkaas wax la gaadho kama soo haraan iyaguna inta badan kama soo burburaan laakiin marka corporation la eego dee qof taan share ku jira hadduu dee dhinto dee sharekiisii waa loo celinaya ama ehelkiis baa shareka la siinaya shirkadaas waxay u noqonayso ma jirto ka shirkadahaasina muddo dheer bay jiraan oo 200 sano iyo 300 sano muddo aad u dheer bay jiraan shirkadaha loo yaqaano corporations marka dhinaca kala duwan marka waxay kala duwan dhinaca raising capitalka korokaca capitalka marka shirkadaha toolano kale korokaca capitalka waxaan uga jeedaa macay dadka shirkada maal gashan ay ku soo beeriyaan capital wax loo yaqaanaa waa owneriski waa dad doonaya inay ka mid noqdaan hantiilayaasha shirkadda ay ka mid noqdaan hadduu soola yahay dee raising capital isaga maba laha oo dee qof soola hal qof faale halka qof baa capital noqonaya laakiin haddii ay saaran shuraaka oo kale ay tahay capitalkoodu aad u adag yahay oo in capital cusub ku soo kordho aad u adagta laakiin waxaad aragtaa shirkaddan iminka kale marka iminka kambariyada corporations markay doonayaan capital cusub ama dad cusub hantiilayaala oo waxay sameeyaan share bay suuqa geliyaan shirkii baa la iibsadaa marka lacag u baahdaan shirkii baa la iibsadaa dabeedna qofkaas wuxuu noqonayaa capital buu noqonayaa oo dee watan shahaada la siinayo dabeedna member wuxuu ka noqonayaa marka qof saami ka iibsaday shirkadu noqonayaa marka saami maadaama uu ka iibsaday waxa raising capital corporations capitalkooda aad u sareeya ama dee in share shirkadu ay ku sii diiso suuqa dad badan baa iibsanaya qayo capital kuwan kale aad buu xadeeyay marka dee partnership kale yihiin dee heshiis cusub badan dib loo soo qaaday capital cusub soo galayo heshiis cusub baa dib loo soo galayo marka aad bay adag tahay in capitalkooda kor u kaco marka ama capital cusub ay ku soo biiraan waxay kale oo ay ku kala duwan yihiin ownership transferka waxa weeyaan lahaansha dadka lehe gudbinaya ama dadkii iska wareejinaya lahaanshaha iska wareejinaya haddii ay noqoto company sole proprietorship iyo company loo yaqaan partnership transferku aad buu adag in qof iska wareejiyo ma hawl yaraan haddii soo yahay hal qof lahaa dii macashada Soomaaliya uu shirkadu xidhayo weeyaan hadduu partnership ay tahay salaano kale uu doonayo qof inuu ka baxo dee waa inuu hantiisi loo xisaabiyo oo ka baxa oo audit geliyo loo xisaabiyaa dabeedna iyaguna heshiis cusub u galaan markastaba aad bay adag tahay labada marka la eego in qof ownership nimadii ka baxo marka hantiilnimadii ka baxo marka laakiin corporation qof muxuu sameeynaya dee qofku saami ku leeyahay dee haddii uu shirkadii fahmi waayo dee saamigu buu iiminaya ama qof kale ku iibinaya ama company baa ka iibsanaya marka oo ku dadka kusoo waxa weeyaan regulations kana aad bay kala duwan dhinaca shuruucda dawladda oo dawladdu runtii aad bay u daba gashaa shirkadahan corporationska dabagal weyn bay ku haysaa oo aad bay daba gashaa halka companyada kale dee aan dabagal saas lagu sameyn oo sole proprietorship iyo partnership inta ma daba gasho laakiin kan sababta loo waxa weey dad far badan baa ka shaqeynaya dad badan baa hanti kule ka markastaba aad dabagal aad u far badan ayaa loo sameeyaa عشر إن شاء الله قسم سوق بين دونا بدي الله خير إن شاء الله وما سنتهي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.